الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، waxaad moodaa inaanu daalay oo raggii idinka horeeyay baan wixii aanu haynay baan ku afuufnay laakiin biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waqtiga gaaban aynu wada joogno bifadli illaahi wa minanihi bal waxaynu eegaynaa aynu ka wada hadli karno. waxaan jeclaystay markaa inaan idiin dooro mowduuc muhiim ah oo marka xaqiiqada la eego mowduucaasi wuxuu khuseeyaa jaaliyadda Soomaaliyeed bishakli khaas, laakiin waa amar caam. mowduucan waxa weeye waa dowr almar'a fi lislaam, gabadhu dowrkay ka ciyaarto ama looga baahan yahay markaynu nadariyadda islaamka aynu eegno. dad badani waxay moodaan inay diinta islaamka ay ku dhisan tahay ragga, oo ninku uu yahay dee ninka dabadda u baxaya ee u soo quudinaya reerka, haddii uu dagaal yimaado ninka gurmanaya ee reerkii difaacaya. xaqiiqada iyo waaqicuna sida uu ka duwan yahay. haddaynu dib iskugu noqono oo taariikhdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo taariikh alislaamba aynu eegno, waxa inoo caddaanaya inay gabadhu ka muhiimsan tahay ragga. oo meelo badan marka laga eego, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati aali cimraan sheeku inooga sheekeeyey. sheekadaasoo ah sheekadii maryan hooyadeed, imra'ati cimraan. imra'ati cimraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan bay ugu qaaday, innii nadartu laka maa fii batni muxarara bay tiri. ilaahayow uurkan aan sido adaan ku siiyey. ayadu marka waxay rajaynaysa oo ilaahay ka rajaynaysay inan uu noqdo oo masaajidka masjid alaqsa ka shaqeeya, oo ama khatiiba ka noqdo ama imaam ha ka noqdo ama khaadim ha ka noqdo. laakiin waxay rajaynaysa way culammadu idhaahdaan inuu noqdo wiil ama inan masaajidka mas-uuliyaddiisa qayb qaada. ilaahay bay u hortay markaa ilmaheedii, innii nadartu laka maa fii batni muxarar, waa khaalisan lilaahi subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu qadiray markaa subxaanahu wa tacaala inay inan dhasho. qaalat rabbi innii wadactuhaa unthaa. ilaahay xaaladdii way isbedeshay bay tihi, inan baan umulay. waxaan umulay waa inan. inantu rag uma khudbadayn karto, rag ma tukin karto, ragga ma dhex ordi karto. dee waxaan moodayay muu noqonin caynkay weeye xaaladdii oo kale. ilaahay wuxu uhi wallaahu aclamu bimaa wadacat. ilaahayna wuu ogyahay waxay umushay. walaysa adakaru kalunthaa. xikmadda halkaa eeg, walaysa adakaru kalunthaa. dakarku, wiilku iyo habluhu isku mid maaha, isku meel maaha. waayo marka la eego meelo fara badan inanta ayaa ka faa'iido badan wiilka. marka waxaan doonayaa maanta badoorka ay gabadha muslimadii ay ku leedahay iyo waajibaadka laga filayo inaynu wax ka yaro taataabano biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. mana jecli had iyo goor inaan cid cambaareeyo ama aan cid wax ku sheego, laakiin mawaadicdan ka hadlaya waa mowduuc caama. ma doonan inay dumarku halka ka soo boodaan ay dagaal nala galaan maanta, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu taataabano waxay leeyihiin iyo wixii lagu leeyahayba. dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala horta fadiilad buu siiyey aanu ragga siinin marka islaamka ay timaado, taasoo ah gabadhii ugu horreysay, qofkii ugu horreeyey muslimay
كلمة التوحيد كل واقع مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقي ما الروح الضمر أيها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة دي مركي لو سوديبي وحنباري دي قفكي لقادي وحوها خديجة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم مركو أصغر نحسن وقريرية وصعر ري قرقي سيبو يمي ومو بايرين حمزة بن عبد المطلب أو لقو يقاني إنو يهينين قاسية أو أغارصة لبحيرة ومو تجن أبو طالب رضينا أو أذيركي الله يقاني إنو يهي عاقلكي يد السلطان كي مقالة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحلينا مركب مؤرخين تكهض ليان خديجة أي أصع الرسيل المير رفض أي مرة قد شيف سطي أصغو أرجع حسن أو نحسن وحسدها أسمينا أصغو أقدقن كعرب عربت إن لقيا بين عيبته أو لقوا يسد دون النبي صلى الله عليه وسلم ورما قبل بعضو عررت محاد أقول إيمان وإذا رجوا حكوا قبان كره لكن وحو أقام مقدار يقبل يسميشي تاجنت هاي ماركي واكي صاع الري إلي زملوني وأنا قرنسا قفك مركا خديجة وتيقول جوابتي كلا والله لن يخزيك الله أبدا إلهي ودقا يا الله كما حمينا يمنحكم ردقا يوم وحنوقت هذا مركا قبرنا مسلمات دي إلهي سبحانه وتعالى ميل شرف لا أي كسي الدين الإسلام وحا انت أقدر قف نفط الدين نفط لقا قادو إسلام آودي ولدي له ده وحي حيد سمية عمار نين أمور إيمان إسلام قف كي قوه الريات انتي ديكي سألوك الله لغاي الروحي سلقا قادي إسلام كآودي إسلام ده وحي حيد سمية waxay ku tusay marka gabadhu muslimadda sharafta ay leedahay qiyaasa waxa ilaawina waxaynu ka hadlaynaa mujtamac cajiiba mujtamac hablaha aasi jiray dumarka kala dhaxli jiray gabadhu qiimo aanay lahayn inanka iyo odayga iyo adeerka kolba gabadhu qofkii soo gaadha ayaa ka haysan jiray dumarka marka qaarkood ragga xitaa rag ways amaahin jireen wuxuu oran jiray gabadhiisa wuxuu ku oran jiray orodoo hebel u tago uur ka soo qaad laga yaabo marka qaarkoodna si taariikhda inoogu sheegayso inay gabadhu intaasoo nin khaymad ay la gelayso kolba kii ay doontay ilmaha ay siinayso mujtamac baynu ka hadlaynaa marka aan dumarka qiimo siinin maca daalika ilaahay wuxuu ku bilaabay qof muslima qofkii ugu horreeye muslima inuu noqdo gabadh qofkii ugu horreeye dhintaana oo diintana u dhinta inuu noqdo qof muslimada oo gabadha waxaa intaa inoo dheer qofkii ugu horreeye xoolihiisa islaamka u huray waxay ahayd khadiija radia allahu canha gabadh haajirada oo la yaqaano oo xoolole oo sidayna maanta aynu waa business lady ah oo loo yaqaano milyaneer inay magaalada ay ka tahay magaalada maka ayay diintii ilaahay xoolaheedii u hortay intaan la soo gaadhin abubakar intaan la soo gaadhin dadkii ka dambeeyey cuthmaan oo kale intaan la soo gaadhin dadkii markii dambe muslimay khadiija ayay ahayd radia allahu canha qofkii ugu horreeyey ee xoolaheedii u huray diinta ilaahay biidnihi subxaanahu wa tacaala waxaa intaa inoo dheer hadday sheekadu caynka ay tahay markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu soo haajiray waynu garanaa in hooyadii abubakar hooyadii iyo dooray ka ciyaartay asmaa binta abi bakr radia allahu canha waxay ka ahayd dadkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu doortay gabadh 9 bilood ilmo uura ku sidas kama yaquulu bacda almu'arikhiin gabadh foolanaysa oo dee 9kii dhammaysay ama ku dhow ayay inta nebiga sala allahu calayhi wasalam quudka u qaaday iyo wuxuu maalintaa cunayo ayay buurta la kori jirtay 3 cisho nebigu sala allahu calayhi wasalam uu dhuumanayay dee qofkii cuntada u geyn jiray wuxuu ahaa gabadh bay ahayd oo waxay ahayd asmaa bint abi bakr radia allahu canha gabadh fariida ayay ahayd oo nebigu sala allahu calayhi wasalam kadibna loo bixiya daata nitaaqayn waxaasoo dhan waxaan uga jeedaa
gabadha muslimadii door muhiima ayay ka ciyaartaa marka la eego diinta meel halbowla ana way kaga taala ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waayo bisalaahiha hadday gabadhu hagaagto bulshadu way hagaagaysaa hadday gabadhu fasaaday xumaatana waynu taaban doonaa bulshaduna way xumaanaysaa gabadh la odhan jiray Sulaym oo dhashay Anas bin Malik bal xikmadeeda lagu tusaya waanu naqaan qisadeeda meer badanna waynu ka maqalay culimo fara badanna waynu ka dhageysanay Sulaym xikmadeeda bal eeg nabigu sallallahu alayhi wa sallam markii uu soo haajiray oo la soo qaxay ayay waxay aragtay raggiyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam hareeraha ka fadhiya cilmigii bay ka qaadanayaan diintii bay ka baranayaan taqwadii bay ka qaadanayaan nabigii bay sallallahu alayhi wa sallam haji goor la fadhiya way u timi markaa nabigii iyadoo ilmaheedii yaraa wada ilma yaroo 10 jira ayay wada ama culimadu yiraahdaan 8 jira ayo la yiraahdo Anas bin Malik Anas bay keentay way u soo badashay way soo qurxisay waxay tiri yaa rasuulallah ha ku shaqeeyo kan yari ha ku shaqeeyo ha ku caawi qof gacan yara wad u baahantay oo markaad weysada ama kabta ama de wax yar aad diratid oo de hadaad wax arrimo waaweynada saxaabada aan doon inaad aad u diratid kan yar u diro yaa rasuulallah una duceebay tiri una ducee nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu duceeyo wuxuu yiri ilaahay umrigiisana dheere rizqna si ballaara caruurtana u barake Anas uu yimaada habeenkii nabigu iska aqfaliya waa ilma yar Sulaym marka waxay tiraahdaa ilmaheeda waxay ku tiraahdaa war ii war maxaad nabiga ka baratay sallallahu alayhi wa sallam cilmigii marka maalintii oo dhan uu dhageysanaya ilmaha yar ku dhacay ayuu habeenkii hooyadii u gudbiyaa waa hooyo xakiimada oo cilmi iyo aqli ilaahay subhanahu wa ta'ala siiya hadaynu noqono dib taariikhda ummadda islaamka waxaad arkaysaa ummadda islaamku waxay ku dhisnayd dumar waayo culamadan aynu dhageysano oo dhan horta dumar baa dhalay waa koow laakiin ciddii soo ababisay ee maalintii ugu horeysay ku canqarisay cilmi iyo taqwo iyo cabsi ilaah aabbaha muu ahayne wuxuu ahaa hooyada ayay ahayd imaam Ahmad bin Hanbal waan ka sheekeynaya ama mid baa idin taaban karaa imaam Ahmad bin Hanbal wuxuu ka dhashay reer ahli cilm ah laakiin fuqara ah hooye aabihi markaa wuu dhintay hooyadii markaa yani gabadha muslimadii doorkii ka ciyaari karta ayaa lagu tusaya haddii ay saalixad ay tahay hooyadii marka intay soo kaxayso ilmahan yar ayay la soo gudi jirtay waa gudcur waa madow magaaladu sideenan de sida ugu wada shidna kama wada hilaacayaan waa saq dhexe ilmihii yaraa bay keentaa masaajidka intaan la adimin masaajidkay soo gelisa halkaa fadhiisa bay tidhaahdaa xagga dumarkay fadhiisataa salaat alfajr bay la sugtaa ilmaheeda markuu salaat alfajr ay tada macallinkiyo wax u dhiga daba markuu ilmihii yara kobco uu yara weynaaday ayay habeenkii guriga yaqul Ahmad bin Hanbal asaga iska hadlaya anoo yar ayay hooyadii oran jirtay guriga adiga u nina guriga adiga u imaama guriga adiga u sheekha sinin u hadal si sheekhnimo nolol dhaqan sinin caalimo oo taqwad leh u behave gareeyo de akhlaaq lagu arko qiyaam al-layl ay oran jirtay adigu natuki adiga bay leen imaamkii guriga wuxuu hooyaday markaano ilma yara ay iga quraan badan oo iga cilmi badan ila waa nooc min tarbiya ayay i joojin jirtay soo oran jirtay adigu salaada inoo bilow wuxuu markaan yara weynaaday ayaan hooyaday intaan soo gaaray marxaladeedii baan dhaafay markii dambe waxay oran jirtay hooyo adigu sii wad anigu waan daalay iska seexan jirtay waa xikmad markuu 6 iyo 10 jir noqdana waxay tiri orodo ka tag meesha cilmi doono iyo diin وهو سبحان الله إمام الشافعي سيدا سلك يتيم بأصنعها إمام
مالك بن أنس مركو يرى أيه ويدي أسو أنت سو قبته أسو بدش مريه علماء زي العلماء هيئة العلماء بيقصوا بدش وحي كتر اذهب وتعلم من ربيعة الرأي وخذ بخلقه قبل علمه وفي رواية وخذ بأدبه أو من أدبه قبل علمه أرض بيتري بح لفرس ربيعة الرأي وعالمك مركب مدينة شوقي أدب تكبر أنت عن العلم جيسة كبرانين وتوجيه هو ينماء وحكو تسسا مركا دورك هو يدو ميشو وكتاقية هاي تربية دا أمد إمام ابن تيمية وين نقالنا أحمد بن عبد الحليم وابن تيمية ومركا تاريخ دا أمد اللي لقي مدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عالم لقو قياسي كراه الله أوران كرا نكن إسكو علم بيهنو إسكو فهم بيهنو إسكو درجات بيهن متشرو وهانين عالمة أو بليغة أو كاتبة أو مفوهة أو جميع المذاهب كوقت قاعد شري يقانة أو متقنة أو مجاهدة أيها ولا يخاف ولا تأخذه في الله لومة اللائم نين لمدي موتشرين وحنبارسي مقعي أيدي وابن تيمية لما إلى هذا أحمد بن عبد الحليم لقيا به قارب بدن هدان مان وهلك فردي هدي أن ويدين لا وار ابن تيمية مجي عيسى بل مجي عيسى شاقة إن قارب بدن كل من لها يعني كبيح الهين أي لقيا به مجعين أن قانا وتيمي وابن تيمية وايو أيدي أيال الأورنشري تيمي أو عالمات أهين مركي ناركي الميرو النابي غدا أو وح يلو ديبا حفظية أو ما شاء الله تقية أو إلهي سبحانه وتعالى كعب صنية أو علمي حنبار صن أيال ونيو المهاسي يلمديها سار أيدي سار دوح الله بحين يا ابن تيمية البخاري ولمد سفيان الثوري ولمد هديان إدين سوق سعد الليث بن سعد ولمد علماء حسن البصري ولمد سعيد بن المسيب ينتيس ولمد يعني هدين ما أنت ولا كان أينو تاجنونا أينو سنهنا تريجريا أما حسن علماء دي أي هو ينكت سوكوريين أما أي أثر كل هاين مرة ما ينو وحنوجه هذا مركا هو يدو الدور كي كل هان كرتو المه يدور كي كعياري كرتو جالية المه مركا هدوي هاي المه الصالحة وهو يهجاكسني أي الشيء waxaan laga filayaa marka inuu ummadu ay ka faa'iideysato oo ummadu ay dhaxasho wixii ay hooyadii ku shubatay iyo inanba ayagoo isku mid yihiin sheeko yar baa dhacday kale wada manqasheen oo ku saabsanay Saciid bin Musayyib radiyallahu anhu wa rahimahu ninkaasi wuxuu ahaa nin taabiciya oo laakiin caalima oo ummadu ay aad iyo aad uga dambayso sharafna intaas ugu filay لكن وحلوجو أبتريا جبر قبه إنه دلائي أبو هريرة رضي الله عنه أنت وحا أقدر إنن أي إلهي سبحانه وتعالى أوسيي قروح يا أخلاق يا علم بله أمير المؤمنين يا عرور تودا يدتك أمرضة يدتك حولها لمالي والله بيصير روح هذا وبل إن أنت النسيو إن كانوا جورينه وديدا ما الدنيا ولا إن أنت إذا إن الملف يتناقيو وحمرك الله صوش شيء نين أرددي سكمل أورد لينيرو عبد الله بن أبي وداع على أورنشري أي صدح الشو أي كم مقنا حلقة دي ما رين تدنا أيو يمي سعيد بن المسيب مركي حلقة دي لما تبي كوي ور محار داعي صدح شو كمان أرجع محار داعي وحولي يا إمام بويري قبل لي بيقول لما تحاس كان قبل أيام لما تي خيركي خير حاس مركار إن أنت قبل لي من آسية ده حاس كي من آسية صدق داعي شو مشغول بانها يقرها لي هاو وحولي ورما جورست إسلامي يمكن أورانا يعني بلا وحي وكاس موش عليهم بالأورانا يعني يمكن مركار ما جورست بويري صدق شاك سوى ريكتيه خير ميالات وحولي يا إمام بويري ومن يزوجه يا يقولين يا بنين فقير بانا يا يقولين الدنيا صدح دينار يوم صدح درهم أيام كلا يا هيبا حوله أن شيكتو وإن أنا نقول جد فريستو أن يرد يا مهر يا أراس وحاسس ما بتشيران بويله
يا إي قورينا يا إنانتيسا وحول عنيك كور هذا كو قوريا إنانتيدا فاطمة بنت سعيد وحول ما أرجع حبرت وين ميان نحا مسوان فرحة مشاكي باي وحن وذاتكم يروا شيء مسح وحكوها الله يا حقيقة إيه مهري بولي وايه الله بو ياري مركا وار مرخاتي كالنقضة إن ننكر إن أنت دي أنسيي وحو يلي مركا وحان هاي فقير كحيان سعلوك شيل ما يسبو يلي وانا صومنا قولي جيبان رزكتا قوس كسو أفر وتالتو كدي وانت كي قولي جيبان سكدح فارس وحو يلي مركا قرص يرو روديو أنجيجن أنسليد أنا كل قيا وحكي لقولي جيما يالان بو يرو ملحو أنجيجن أيا الباب كلا قراع فقلت من وكما قال سعيد وسعيد بويلي وحول السعيد وانا أقاني ويقصر دعي بويلي ترى ما سعيد هبل با مسوى سعيد هبل مسوى ننكا سعيد بن المسيب مويان وايا بويلي أفرت الصنادات وحي هاي العادة دي يسؤولون عشاي وتكدو وقرقي سأوتو عيد لمو هاد الجر الباب كيبان فري وابا سعيد بن المسيب تاقن ماشي ما حد عيب ويلي ما دي يدي أنا كو إيمان لهاي ما يقولي لكن وحن دريمي بويلي إن أنا عدالة أهين إن تكلم عاوة ساحتي أيضا قبل دي مقولي مقالة قبل دي مقالة أي شوكتو وحول مركا وانتو كيرا دقاقي مسوا وابا قبل دي هالكن تاقن بويلي وابا قبل دي هالكن تاقن وحول مركا وصور ريحي الباب كي ونصو حرا ما نوضا الشيء كيسنين ما نحاساوين عنك وقت قرن مايو نقاب حران تحي أيدس إما قرن إسو إنن ده ما شاء الله فيسبوك رجع كلا حاساوين ما يحين إنن ما شاء الله صور عد وقروح بدنا أنت فيسبوك السوق ليسو حد لو نرجع حيرم مدوك هذا صباحنا ما يحين ما يحين إيه وحي أحين قبل ده كو إج أو جرو جدا تقانا والدين تدا تقانا وحيلي مركي أي صوغ شيء الباب كي نوع حري أي إن أنت الصوح ده النحل أوده أنا وحيلي مركا وان نحي أرت وحيلي لقطة كبيرة لفت الرودي دي يد ملح دي وحنس دي عبت هذا أركن إيش أصر وحيلي وان عربي دشان سكوت هاجي وان قيلية كويدا نقولي وكم قنطي وحر يا أيها الناس زوجني سعيد بن المسيب ابنته سعيد بن المسيب إن أنت سبوا قوريه حتى يعرفتان برتو قوري قبل كسر بحيسا هورنا وداتك السوق مذوب مري إلالي أوكسون هذا وحيلي إسلام حافظ دايدو شار كيغا أياتري كذبت بينالات هبيتري سعيد بن المسيب حين أنت هذا السعلوك أديكو كلا وقدرية هو يدي بين مقاشي والقيلة دي وحي قلت لي إن لمستها هديت إن أنت تابتت فويلك ثم ويلك وأنكو دي لي يحدث إن أنت تابتت بي وحولي وي إسلانتي باتمي إن أنت قولي قبال الله يقصاري مري قولي الله يقصاري أي حد لو الله يار إن أنت يو لقاضي لسوق قرحيي لسوق هقاتشيي ما شاء الله ليسوا دياري وحولي وان سوق لي فما رأيت أجمل منها قط قولك قروح بدن ولي يا الله ما ضحيكم يصور عن والنعم وحول إلهي سبحانه وتعالى هبينك بدل لبيك اللهم ما لبيك كبعد بوي الصبح دي بان كعي إذا إمك أرض بان هاي وضيقة ده إن أنت كجورسنا ومعلن كيك ما هبصامي كرم وأنت جيبوي وعن بحي وحده ينبحوا إلى أين بيقول حاجة تجلسه ده أضيقي شيخ سعيد بن المسيب كسر لجانية قالت اجلس فعلم أبي عندي وحو أبهي يقانور رمبا أنا جا هي بل يرفع لسبيت الوكاي أنا وحكور لجاية حبلها ما أنت ده بدن إلا ما رحم ربك مركز لجورسدو متكورنا سعلمي بانكوها يا مجرد أما وحبان كور لجاية مج إسكبداتها لكن لجاية بإنك كتر هذا بل إن جاي شريطان أما إن جاء إن ميل كلا إن جاء أما الدون يا أموره سأكرر ما ويدو إن أنت علماء دي مركا ويحللين وحي إلى هذا يا صوت تربية دي فضل جاي الله السياء الضباك
oo loogu abtiriya khayrkan ma saciid bin musayib mise hooyadeed wixii dumar guriga joogay waxa la yidhi aabbuhu shaqo kuma lahayn aabbuhu waayo aabbuhu de markuu guriga subaxdii ka baxo masaajidku fadhiista duruus buu akhriya habeen oo dhan iyo maalin oo dhan cishaay buu ka soo rawaxaa goormuu wax tarbiyadeeya goormuu wax u dhigaa carruurta goormuu kala dabara maba waqti ma hayo laakiin xikmaddu waxay ku aasantay waa hooyada baa la yidhi marka gabadha muslimadda ee Soomaaliyeed haddii ay garanayso doorkeeda iyo muhiimadda ay leedahay waxay u xidhan lahayd inay carruur wanaagsan inoo soo kordhiyaan waxaa tii markaa dumarka iyagoo intaa le intii lagu leeyahay baynu sheegaynaa waxaa timi dowr almar'ati alfaasida gabadha faasidada ee aan muslimad hagaagsan ahayn haddii aynu runtii aynu gudagallo ama ay dee inala joogto mafaasidkay leedahay ayaynu taataabanaynaa qudheeda kow nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil lagu rogay ama lagu ibtileeyey dumarkay ahayd ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nnisaa dumarkii markay u taag heli waayeen oo dumarkii reer bani israa'iil ay qaseen bay ilaahayna subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil uu rogay gabadhu haddii ay saalixo tahay mujtamaca way hagaajinaysaa haddii ay faasido tahayna mujtamaca way hallikaysaa way rogaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska wuxuu ku yidhi ittaqu dunya wattaqu nnisaa adduunkana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya waayo gabadhii haddii aanay saalixad ahayn ay taalixad tahay waa musiiba inta waxaa u dheer hooyadii haddii aanay saalixad ahayn carruurtii aynu ka rajaynaynay iyo salaaxii aynu ka rajaynay carruurta iyo durriyaddan ka sugaynay waa ka shub hadday hooyo ay tahay aan ilmihii qur-aanka baraynin oo aan diintii baraynin oo aan akhlaaqdii baraynin oo ilmaha caynka loo ixtiraamo aan baraynin caynka aabbahooda ay u ixtiraamo aan baraynin dee waa ka soco waxaa idinka sheekaynayaa gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslimta marka hore gaalo ahayd ayaa gabadhaasi waxa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxa iga yaabiyey marka la soo muslim yani ana u qabtay shahaadada waxa iga yaabiyey gabadhan siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow African American waxaan deganay markaa Maryland meel yaraado oo Mareykanka ah ninkii markaa wuxuu igu yiraahdaa Saciid iimaan buu dhahaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka African American waxa lagu yaqaan dumarka madmadow soo muslimay Mareykanka degan inay taf yihiin oo ay adag yihiin oo taagan yihiin oo ninka halka hadii goor ay ka jiraan oo laga acuudu billaysto ninkana gabadhiisa wuu amaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeeray ii waran baan ku waxay tiri caynka ninka loola dhaqmo ninka caynka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tiri hooyaday waa hooyada gaala iyo aabaheedoo gaala hooyaday bay tiri markuu aabahay yimaado intaanu imaanin bay annakana sii diyaarin jirtay way noo sii maydi jirtay looshin bayna sii marin jirtay wayna sii qurxin jirtay cadar bay noo sii marmarin jirtay annakoo diyaara oo aad moodeen inaan dee aroos tegayno xaflad aan tegayno qurqurux badan oo naloo sii meydho naloo sii subka baa aabahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaxa ku dhufto ay tiraa dusha kora yaaca waxay tidhi marka aabahay hooyadii halkaa tuwaal baa u saaran aabahay kursi baa albaabkay u dhigtay bay tiri kursigii bay ku fadhiisisaa kabahay ka bixisaa maryihii uu xidhnaay sare ka bixisaa tuwaalkiina way siisaa waxay tahay musqusha galoo soo meydho alaabtiisii bay tiri markaa musqusha ayay u taallaa
markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaara ayuu u yimaadaa 2 saacadood ayuu asagu nastaa ama uu raaxaystaa maruu cunto cunayo maruu hooyo la sheekaysto 2 saacadood ka bacdi baa nala siiyaa bay tiri idniga inaanu aabbahay u soo degno markaasaanu soo degnaa saanu la ciyaara aanu dhudhunkana hadhowna saytaa orda daba seexda aabihiin berto uu ka lahaya ixtiraamka markaa ninka caynka loo ixtiraamo waxaan ka bartay hooyaday ka bacdina waxaan akhriyay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam caynka ragga loola dhaqmo ayaan bartay waxaa jira rag fara badan oo halkan aan maanta hadlaynin oo sida fiidmeerta guriga ka warwareega oo meelaha maano dhammo maqaaxibu ka soo sheekaynaya halkan buu kalba halka mar buu hebel leero tagaya hebel baan meel geeyay buu oranay inta wuxuu sugayaa inta tii ka seexanayso wuxuu ilaahayo tii bas si on dheh wuxuu sugayaa inta tii guriga ma sha Allah ka seexanayso waayo wuxuu ogyahay markuu jidh guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabatay xagaa tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sidaa u fura waxaad moodaa buu inay aniga isugayso buu markan albaabka sidaa u fura waa ay soo fatahda ayadoo qaylansan ka seexdaa buu yiri ayadoo qaylansan waan soo toosa saana buu tara habeen waxa dhimay qaylanaysa mise way nasatay waxa looga jeedaa marka caruurtii ka warramay marka caruurtaadii wuxuu yiri caruurtii ima ixtiraamaan ima maqlaan igama dambeeyaan waxba igama dhageystaan waxay ku tiraahdaa saaqid sida abaha saaqid ha noqon ku tada caruurta orda wax akhriso bila macnaha orda wax akhriso wadumarka laga aawdo bilaysto gabadhu saadani ay saalixadan oo aan ay faasida tahay reerkii iyo bulshadii way gubaysaa waxa masaa'ib ah oo annaka lagu ibtileeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala haydin ka badbaadiye fasaadka gabadha waxa kamida dumarkii inay baxayaan miya aragteen dumar habeenkii guuraynaya miya maqasheen wali waxaanu u naqaanay gabadhu hadday cishaay markay cishaay wixii ka dambeeyay haddii aanay khayr ku maqnayn inay ceebtayna gurigeeda ka maqnaato gabadhu annaka waxaa ilaahay nagu ibtileeyey dumar doonayna habeen oo dhan soo jeedaan war ma security ba maxaa xaggaa la tegayaa aroosya la samaysanaya xafladu weekendka aanu aroos jirin ayaga is casuumaya ilaahay noo barakay dumarka waxaynu naqaanay dumar ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna wada asture dumar gurigooda u soo qoyda masaa'ibka imika annaka xaggeega waska marka la eego na haysta waxa weeye gabadhii waxay doonaysaa inay habeen oo dhan ama waa xaflad ama meelay ku soo sheekaynaysaa qaar baad habeenka aad mooday night shift galayaanba ilaahayna wuxuu nagu yiri quwa anfusakum wa ahlikum ilaahay wuxuu nagu amray inaynu inaku iyo dumar reeraheena inaynu badbaadino ninkana waxa lagu amray wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha reerkaaga waxaad ku amartaa inay tukadaan una sabr meelay ku taalo quraanka ma jirto gabadhaadu habeenkii ha guurayso una sabr ma jirto meel xadiisna kumaan arag aayadna kumaan arag meel ay shariicadu dumarka u ogolaanayso inay meelaha habeen oo dhan ay sida fiidmeerta ay lugeeyaan oo aroosiya ka soo tumaana ama ay ma jirto gabadhu marka gabadha muslimadda ah waxa laga filayaa inay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsato oo ninkeeda iyo reerkeeda ay dar yeesho gabadha saalixada waxa lagu yaqaana inay dar yeesho reerkeeda iyo ninkeeda waa taqa xadiiskii wada maqashay Sulaym waxa guursaday nin baa guursaday ansaarta ah
ilmay isu dhareen ilmihii baa ka xanuunsaday ilmihii baa markuu xanuunsaday wuu dhintay ilmihii odaygiyo maqan ilmihii bay aastay reeshaqadii bay dhammaysay habeenkii bay isu diyaarisay ninkeeda way cashaysiisay ninkeedii bay isu diyaarisay markii wax walba dhammaadeen bay tidhi ka warran bay tidhi hadduu qof ammaano inagaga tago hadhana uu ammaanadiisii uu la noqdo inaynu ka xumaano aynu ka xanaaqno ma waajib bay nagu tahay dee maya ammaanadii celi buu yidhi maxaa ku waalay waxdadaba ilaahay ammaano uu ina siiyeyo ammaanadiina wuu la noqday ilmo yaroo ammaano uu ina siiyo ammaanadiina wuu la noqday wuu xanaaqo wuxuu yidhi maano ilmahayga dhintay ayaad isukasay qurxisay ee cashaysiisay ad waxaad u cadhooday waabuu duday nebigiibuu u tegey sala allahu calayhi wasalam waa nin dudaya markaa gabadhii caynkaasay umma sulaym caynkaasay igu samaysay buuhi yaa rasuul allah wuxuu uhi nebigu sala allahu calayhi wasalam way axsanad way hagaajisay arrinta ilaahayna xalayto ilmo ayuu idinka abuuray culammadu waxay dhahdeen ilmahaasi dhashay habeenka ilmaha ilaahay abuuray markuu dhashay uu weynaaday horta 7 inan oo xaafida ayuu ilaahay siiyey khayrkii adduunka iyo aakhirana wuu siiyey ilmo saalixa buu ahaa ilmo saalix ayuu ahaa dadka meero fara badan ragga Soomaaliya waxay ka ashkatoodaan waxay yiraahdaan dumarka iyagu waxay isqurxiyaan oo ay isdiyaariyaan waa marka aroos la tagayo soo dhab maaha iska qeyrta dumarka idima arkayaane iska qeyrta idima arkayaane gabadhaynu dumarkeen haddii maasha allah habeenka aroos jiro dirici ugu dambeeyey dahabka meel allaaliya meel ka keenan garan mayne way iska lulaan dumarku berigii hore waxaa la yidhi dacas bay isa dhici jireen intay ismariyaan baa la yidhi bahalkii maxaa la odhan jiray mayba boorarkii dambe u yihiin boorarkii imika gabadhu makiyash bay tegaysaa saloon bay tegaysaa timahay soo feedhaysaa wayse soo qurxinaysaayo caynka gabadhiyaad xural cayn moodid ayaa kaa baxaysa waxay soo noqonaysaa iyadiyo daalan diricii iyo dahabkii iyo wixii aad u iibisay ama iyadu iibsatayba adugu kolleyba horta laa tatamatacu bih dadka dabadda jooga ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nasiibkooda siiyey nin baa ka sheekeynayey wuxuu yidhi gabadhaydiibaa waa la soo hadlay waxaan ku idhi caawa waynala casuumay diyaargarow casuumad ayaa caawa jirta diyaargarow wuxuu yidhi gabadhii baan u imi makeup bay isa sii marisay way isa sii qurxisay xamuurad bahalkii indhaha maxay xirribo beena oo aad moodid kuwii gorayada in dhabanadii bay casaysay cidiyo beena oo fayka iyo iska taagtay wuxuu yidhi gabadhii oo aad moodid xural cayn baan gurigii imi oo diyaar gabadh markaa waan fadhiisay kabihi baan iska bixiyey way iyara sugtay waxay sugaysaa intaan meydhmeydhanayo waan meydhmeydhay bajaamahaygii baan iska soo xidhay macawisaydii waan dhex fadhiisay gurigii waar maxaa dhacay bay tiri miyaanaynu baxaynin wuxuu yidhi maanta innaka iscasuunay innaka ayaa iscasuunay oo waxaan u darsaday wuxuu gabadhaydii quruxda badnayd inaan mar kale arka ayaan jeclaaday marka ilaahay ku barakay waad qurux badan tahay sidaa inoogu joog buu yidhi waxay tiri makaa dhabba haa buu yidhi oo kaftan maaha kaftan wuxuu yidhi intay sidaa tidhi ayaa wixii ay dibnaha marisay iyo wixii ay dhabanada marisay iyo wixii indhaha marisayba sidaa isku dhamboqday buu yidhi cifriidar baa ka soo baxay buu yidhi meesha ilan kalarol buu leeyahay cifriid yar hooyada ku kadab gobay tiri markaa waa kan hooya ku kadab go gabadha muslimadda waxaa looga baahan yahay inay ninkeeda isu qurxiso oo haddii ay doonayso xaflad iyo inay bedelato iyo caynka inay waqti munaasiba ay u timaado ay tagto oo aanay ka noqoto wadaadada ka mid ah
wadaadada ka mida ayaa wuxuu yidhi gabadh wadaad sheekh macruuf oo la yaqaano halkana mar idinku yimi ayaa wuxuu ka sheekeeyey qoysku caynku u dhaqmi lahaa iyo raxmadda iyo mawadada iyo jacaylka wuxuu yidhi markaa gabadh baa muxaadaradii bay dhegaysatay waxay tidhi caawa sheekhu wuxuu sheegayo ayaan ku dhaqmaya wuxuu yidhi way tagtay gurigii bay diyaarisay uunsi bay ku shiday casho wanaagsan bay samaysay iyadii baa isqurxisay miiskii bay cuntadii dhigtay wadaadkii baa guriga soo galay wadaadkii markaa wuu yara yaabay dee meeshii qiiqu sida isu haysto ayadii oo dhalaalaysa wuu iska aamusay cashadii buu cunay shaah baa loo keenay wuu iska fadhiistay hadha buu leey naa heblaayo caawa yaa inoo imanaya say tiri cid inoo iman maysee adiga ayaan isu kaa qurxiyey rasuulillah ma kaa dhabbaa way soo noqoto way xanaaqday waxay tii maryii baan iska bixiyey waan iska seexday sheekhii bay tiri nasiixaddii aadna siisay may shaqaynin oo dee ninkayga imuu qadirin juhuud jahdigan isgeliyey iyo dadaalkan isgeliyey iyo wixii muu qadirin wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu yidhi kaagamuu baranin hadduu kaga baran lahaa oo maalin walba isu qurxin lahayd ama wiig walba isu qurxin lahayd dee wuu qadari lahaa laakiin wuxuu bartay marka la isqurxiyo ee dahab la iska lulo ee dibnaha la caseeyo inay tahay mar la baxayo marka waxaan leeyahay gabadha muslimadda ee weliba soomaaliyadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato oo ay ka fogaato waxyaabahaas oo kale risaaladii loo dhiibana inay fahamto waxaan ku soo gunaanadayaa marka kow rag iyo dumarba horta inaan ku dhaqanno bikitaab illah ina kitaabka ilaahay lagu dhaqmo ha uguna horayso alqawaama ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay oo wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamaddu markaa waa maxay inuu ninku uu noqdo madaxii guriga maaha inuu noqdo jeeniga ama dabadhilifka maaha waa madax waa qofkii mas-uulkii guriga waayo yowma alqiyaamaha waxaa la weydiinayaa mas-uuliyadda guriga waa ninka isagaa lagu horraysiinaya waxaa lagu horraysiinayaa gabadhaadu xaggay tagtay inantaadu xaggay tagtay carruurtaadu maxay cuneen maxaa gurigaaga ka jiray ma telefisyoon iyo fusq iyo fasaad iyo musalsalaad baa la daawan jiray mise muxaadaraad iyo duruus iyo cilmiba guriga lagu akhrisan jiray ma telefoon iyo ghiiba iyo namiima ayaa ka socotay mise dikrullaha iyo waxa ka socday wax ilaahay la xusayo ninka ayaa laga waraysanaya gabadhu marka ilaahay wuxuu sameeyey aadanna xaawo ayuu agdhiga ku laray ninkuna waa markaa wuxuu taagan yahay maqaam aadam aabaheen calayhi salaam gabadhuna waa xaawo kale hadafkuna waxay ahaayeen ina dhurriya saalixa ay keenaan khulafaa ilaahay ugu talagalay inii jaclin fi lardi khaliifa khilaafadda ilaahay ka hadlay inay ka wada shaqeeyaan ninka iyo gabadhuba inay labaduba ku dadaalaan ayaa la doonaya waxaan idinku celinaya oon aad iyo aad ugu celcelinaya gabadha muslimaddii inay ilaahay ka cabsato ay u saburto ninkeeda iyo caruurteeda iyo risaaladii ilaahay u dhiibay inay xambaarato ay la socoto aanay ku mashquulin waxyaabo bilaa macno ah iyo tafaahaat dunya iyo heblaaya la guursado iyo heblaaya la mehersado iyo hudheerkaasa lagu qabsado iyo heblaaya la isfurayo waxyaabaha laakiin inay ka fakirto caynka reerkeeda u badbaadin lahayd ninkanu markaa asaguna qawaamadii laga filayey inuu la yimaado waayo ilaahay subxaanahu wa tacala waa kii qur-aan ku sheegay quu anfusakum wa ahliikum waa kii ilaahay qur-aanka ku sheegay aniga intaasay iga tahay waano ilaahayna subxaanahu wa tacala ha inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana horena waan idinku sheegay muxaadaradani waxay ahayd dowra almar'a fi lislaam ugumana jeedo inaan dumarka la cambaareeyo ama ragga in ziyaada ah la saaro ragguna tooda way leeyihiin dumarkuna tooda way leeyihiin insha allah marka dambena wada hadalna waxaa laga yaabaa inaynu waajibaadka rag laga hadlo oo waxaan arkaa aniga aad iyo aadan u arkaa ninkii horta geedkii nin la odhan jiray wuu dhammaaday xagga yaga
wax rag la yidhaahdaa ma joogaan waan aad ugu yari xuquuqda waddanka iyagu 4 darajadood weeye ixtiraamku 4 darajadood weeye ixtiraamka ugu horeeya waxa weeye waxa la siiyaa iyo xuquuqda ugu horeysa waxa la siiyaa waa dumarka xuquuqda labaad iyo ixtiraamka labaadna waxa la siiyaa waa caruurta ta saddexaad maxaa u malaynaysan waa ayga iyo bisadaha la siiyaa xuquuqda afaraadna waxa weeye ragga ayaa la siiyaa marka raggii ku soo socday horta Yurub iyo anugu imanaya Mareykanka de ahlan wa sahlan caankaasaan ku noolay horta haddaa jecesheen number 4 ka gashaan la soo gashaan de ahlan wa sahlan haddii kala qawaamadina iyo sharaftina iyo ciizadina ilaahay idin siiyay fi araadi almuslimiin taa nicmaysta taa hala nicmaysto marka raggana maalin ma la hadli doona laakiin muhaadaradan waxay ku saabsanay dumarka walillahi alhamdu wal fadl wal minna سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد نحيي فينا الآمال نزرع